bariga ku yaal kusaanada gobolada bariga waxa ka qabow ka aqoon badan ka tala fiican gobolada galbeedka duqa magaalada Boorama oo maanta ka hadlay munaasabad loo qabtay 100 sano guurada magaalada Boorama ayaa sheegay in magaalada Boorama ay tahay caasimadda labaad ee dalka iyadoo aynu horay u ogeyn in magaalada Burco ay tahay caasimadda labaad ee dalka sidoo kalena duqa magaalada Burco ayaa isaguna waxa uu ku celceliyay in magaalada Burco ay tahay caasimadda labaad ee dalka isagoona hore u sheegay in magaalada Burco lagu haysto caasimadda labaad ee dalka wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolkii Togdheer gobolka ragga waa maqlaysiin Abubakar Umar Aadan inuu hadanka lahaa cid baaba sheegatay magaalo madaxdii ilaa Ingiriiskeen la horta gabadh nin qabo halka shuurinaysa hadaad iska caashaqdo waa mashraak qolada maanta iska caashaqday magaalo madaxdii labaad oo aanay lahayn waxay ila muuqataa nin faras aanu lahayn fuulay maxaa la yiri sidaas si la mid ahna qaar ka mid ah uqaasha gobolka Awdal ayaa waxa ay hore u sheegeen magaalada Boorama ay tahay caasimadda labaad ee dalka Sultan Baadi wuxuu yiri caasimadda saddexaad bana waxaan leeyahay waa halmaam hadalku ma jiro yar halmaamay annagu waa caasimadda labaad ee Soomaaliland magaalada Boorama madaxweynuhu markuu xaqaa yahay madaxweyne ku-xigeenkuna waa meel caasimaddu markay meel tahay caasimaddu ku-xigeenku waa meel baasha qayrinka lagu qaybsado haddaba magaalada Boorama oo ku taala galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxa ay caasimadda u jirtaa 105 kiiloomitir halka magaalada Burco iyaduna ku taala bariga magaalada Hargeysa ayana caasimadda u jirto 280 kiiloomitir haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa waxa ay tahay magaalada Boorama ma noqon kartaa caasimadda labaad ee dalka hadalkani ka soo yeedhay duqa magaalada Boorama ayaa waxa uu hadalhayn badan ka dhaliyay baraha ay bulshadu ku kulanto kuwaas oo dadka isticmaala baraha bulshadu ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen hadalkani ka soo yeedhay duqa magaalada Boorama Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen Television Kariel